qurba joogta ku nool waddanka Finland ayaa fikirro kala duwan ka bixiyay kusoo gurya noqoshada aqoon-yahan Axmed Ismaaciil Samatar ee Somaliland. Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoon-yahan siyaasi ah oo geyiga Soomaalida ku caan ah waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Macalester ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Professor Samatar oo wiigii hore yimi Somaliland isagoo 22 sannadood ka maqnaa waxa uu si weyn oo qiiro leh loogu soo dhoweeyay Somaliland. Telefishinka caalamiga ah Home Cable TV oo qurba joogta Finland mikrofoonka la dhex maray dareenkooda ku aadan imaanshiyaha Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo afkaaro kala duwan oo ay ka bixiyeen waxay u dhignaayeen sida tan. الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مقعي وحويا عول عبد الله حي waxaan doonaynaa salaamo aadan oo ah wariyaha Home Cable TV oo maanta doonayeen ururiya afkaarta ku aadan safarka Axmed Ismaaciil Samatar ku tagay wadankii. runtii aniga waxay la tahay Axmed Ismaaciil Samatar safarkiisaas waa safar guul ah qaranka Somaliland iyo dadka Somaliland iyo naftiisaba. shakhsiyan Soomaalidu waxay tiraa maan rag waa madaxiya afkooda iyo bini'aadanku in afkaarta isku khilaafaan. de wax weyn maaha oo wax weligeed jiray waxaa saad muhiim u ah qofka fahma shalayna baan qaldanaa maantana waan saxsanahay. Axmed Ismaaciil Samatar waxaan u aqaanaa nin ila 3 amuurood koow nin la aqoonto halka ugu sarreeyo bini'aadamku ka gaaray nin la baan u aqaanaa. laba waxaan u aqaanin markuu hadalkiisa ka muuqato cadaalad oo aqoontiisa markasta cadaaladda ka hadla. waxa kale oo aqaanaa nin de maanta hadduu ku soo biiro qarankan iyo dadkan wax weyn ka tari kara meel kasta adduunyada joogo. marka aniga waxay la tahay waxaan leeyahay hambaliyo ku soo dhawow qarankaagii Somaliland waxaan leeyahay wax badan qaban doono kulli aniga intaan ku soo gabagabayn doona fikirka aan ka qabo Axmed Ismaaciil Samatar safarkiisa. waxa kale oo mahad celinaya iyadana mahad leh oo in laga tagaan ahayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo golihiisa wasiirada iyo golayaasha qaranka u ogolaaday inuu wadanka soo galo ee waliba siiyay invitation iyo aragtay ku soo galka wadanka. billahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aadan wariye aad baad u mahadsan tahay inaad na weydiiso fikirka aan ka qabno soo dhaweyntii iyo tagitaankii Axmed Ismaaciil Samatar uu ku tagay Somaliland. horta aniga fikirkayga Axmed Ismaaciil Samatar waxa weeyaan aqoon-yahan u dhashay Somaliland oo loo baahan yahay aqoontiisa kartidiisa maadaama uu yahay aqoon-yahan waqti dheer qurbaha joogay oo wadanka Mareykanka jaamacad ka dhiga. adduunkuna waxa uu isku dhaafay waxa weeyaan aqoon iyo fikir firfircoon oo furfuran iyo cadaalad weeyi. Axmed Ismaaciil Samatar anigu waxaan leeyahay soo dhawow dalka iyo dadka islaamka ayaa ku baahan inaad aqoontii aad adduunyada ka soo heshay aad dib ugu soo celiso. qof kasta oo qurba jooga oo Somaliland u dhashay amba Soomaaliya u dhashay amba geeska Afrika dhan u dhashayna waxaan leeyahay aqoontiini caalamka aad ka hesheen maaha inaad wadanada aydan u dhalan uga faa'iideysataan dalalka idin baahan ee wadanadii dib ugu soo noqda. aadna waad u mahadsan tahay. ummadda kale Somaliland iyo Soomaaliya waxaan leeyahay nabadgelyada iyo amniga iyo waxbarashada iyo caafimaadka laga wada shaqeeyo qacmahana la iswada qabsado. waad mahadsan tahay. بالله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أنا وأرتلكم على هذا ما علينا Home Cable TV وبرنامجكم وضع runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta professorka la soo dhaweynayo. waxaan rajaynayaa inuu yani fursad ay tahay maanta Somaliland oo dadka iyo dalka ay u tahay. waxaan ku boorinayaa in uu maaragtay si fiican loo soo dhaweeyo qurba joogta iyo dadka dibadda degan ee inaguna aynu ka mid nahay inaynu ku celino aqoon iyo adduun waxaynu leenahay baynu wadanka ku celino oo sidaas professorka kale. runtii waxaan aaminsanahay inuu professorku soo waayarkay oo markaa caalamka intii Soomaalida wax badan la qabtay doorkan waxaan leeyahay doorkii Somaliland iyo dadkooda ay aaminsan yihiin. laakiin Axmed Ismaaciil Samatar kuma qanacsanayn jiritaanka Somaliland aad buu ugu soo horjeeday mucaarad buu ku ahaa heesuu xitaa u qaaday waa la helaya maanta wixii duuban waa la helaya BBC laga helay Universal laga helay meel walba waraysigiisa ugu buuxa isagoo shalay dacaydeynay maantana waxa weeyaan wax xildoon ujeedadiisu aan fahmayna. laakiin waxaanu ka aragnaa TV-da Somalilander fara badan oo wadamada Europe ama America ka yimaada oo iyagoo muwaadiniin Somalilander ah intay halka ka tagaan wadankii xil doonta way jiraan. waanu ku faraxsanahay waana soo dhaweynaa dadkooda iyo dalkooda oo wax la qaybsanahay. laakiin shakhsi shalay toole
حاجة وهيسي ما أنت نهرجيس وسو هيسي هذا يوسف عثمان تلفزيون عالمي هون كيبل تي في فينلاند